barnaamijka caawa wuxuu u saabsan yahay 3 qaybood waa barnaamijkii martida iyo mikrofoonka loogu talagalay inay madashan kaga hadlaan iyo casho sharaf aan ugu talagalay jaaliyadaha iyo martidaba waxa kaloo xiga oo aan marnaba aan meesha ka maqnayn fanaaniintii qaaliga ahayd waa kuma waa tee waa tuma waa haniyuke oo aad wada garanaysaan kuhay meesha la rabo yaa kale aad filaysaan gobolada Sool Sanaag Cayn qaranka Djibouti waa iyo qaranka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed ila magac asaas hadda loo bedelay waa Saciid Shino waa Arab Francis intaas waa barnaamijkeena u dambeeya intan hore markaan anigu aan ka soo noqdo dhalinyaro weyno iyo goobta waxa jooga oo kale caawa sharaf marti halkan inoogu ah journalist wariye de maxaan iraahdaa amaan in qof Soomaaliya oo qabto qofka ugu magaca dheer waa kuma yaad filaysaan waa Ismaaciil Ibrahim Ducaale Aftaag madashan caawa wuu daadihinaya wuxuu ka yimi carrayn Ingiriisaad in badan ba TV iyo YouTube aad ka arkayseen dacaawa waa dhinacaygu taagan yahay aniga qudheeda sharaf bay tahay inuu barnaamijka ila daadihiyo waad arki doontaan barnaamijkii waa inoo furan yahay barnaamijkan caawa waxaa loogu talagalay waa sanad guuradii afraad ee maamulka Khaatume State of Somalia waad wada garanaysaan sacabkii mee waxaa kaloo lagu taageerayaa maamulada Maakhir State of Somalia iyo Khaatumo ayay taageero u sameynayaan oo yaa dhigay waa jaaliyadaha Belgium iyo Holland ayaa barnaamijkan dhigtay waxaan kaloo aan rabaa halkan inaan idinka iftiimiyo yaa inala jooga marti way badan yihiin jaaliyadii Ingiriiska oo yaa hogaaminayay odax cunaaye Saciid Aftaag jaaliyadii Germany oo yaa hogaaminayay Shukri Ilkacase way inala joogtaa jaaliyadii Faransiiska ee Khaatumo iyadana way joogtaa jaaliyadii Holland iyo Belgium iyaga marti sooray waxa kaloo jaaliyada badan ay meeshan Soomaaliyeed ay ku sugan yihiin waxaynu bilaabanaynaa barnaamijkeeni aan caawa ugu talagalnay dad muslimiin ah ayaynu nahay waxaynu ku bilaabanaynaa aayadaha Quraanka waxaana inoo akhriyaya Sheikh Cabdirashiid Buuhoodle السلام عليكم ملايين وقت من وعيري بالي لكن قرآن بنا خيا وحاول قرآن إلى آخره قرآن كوخيا كل وين التفاصيل كبيرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله القرآن كسكويدي وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين النبي محمد يضل الله اليوم فأوحى لي النبي الله داتك وشيء دات وحي أنفع ساقوا المؤمنين تا لما كلمة من كهلا يا بالمثل آية القرآن كما عن هذا ينقونيسو الإسلام بين هاي marka inuu islaam nahay oo meel la isugu yimaado waxa weeye Allah laga cabso laakiin dadkan aan wanaagsaneyn baynu nahay marka inuu Soomaali nahay dad islaam aynu nahay laakiin wax xun baynu sameynaa maxaa waxa xun kamida xaflad baa la sameynayaa aayad quraan yaa lagu bilaabayaa heesna waa laga dambaysiinaya laba isqabta maaha in aad xaflad qabato oo aad quraanka ku furto oo aad heesa ku dambaysiiso de waxa weeye ninkii wadaadku wacdiyay ku ilaahay ka cabsi wax xun sameeyay waa sheekhi dhaqso waa la sugayaa abaab loo sheegaya wuxuu maanta iska daabaleen marka arintaas waa taa wax i farxad galiyay baan laakiin galabta meesha ku arkay wax i farxad galiyay baan galabta meesha ku arkay korbaan ku tukanay salaada niman dhalinyaro oo badan oo dad hadda yimiya oo waxaan arkay jamca u xiran waa wax ilaahay loogu shukriyo wiilaro dhalinyaro oo bilmeetal markuu cimrigiisa ugu bato ama 15 ama 20 jira oo salaad jamac u fadhiya waa ma sha Allah weeye wax lagu magaranaysa lagu farxa weeyaan dad islaamay nahay markaas waa inuu xaq isu taqaarno dad badan baa waxay jecel yihiin in markiiba muusig bilowdo oo bilmeetal ay magarata ciyaar ay bilaabato laakiin muslim baynu nahay kulli hadaynu qalad sameynayno oo dad ay dambi sameynayaan توبة لبتدين يا لقيتك ينا بالمت قف وتوبة كانوا أما مكانها واحد وسمينا يو مارتي
ay noqoto magaranaysa wax wanaagsan inuu ka dambaysiyo marka waxa la yiraahdaa ayuha alladina aamanu kunu ma'a saadiqiin kuwa alle iyo nabiga rumeeyayo noqdo kuwa run sheega oo waxa aad sheegaysaa inaad ka run sheegtaan fanaaniinta iyo dhalinyarada labada waxaan ku rajaynayaa in ay yareeyaan heesaha iyo waxyaalaha noocaas waxaan rabaa haddaba Ismaaciil Ducaale Aftaak waa kuma haye Ismaaciil عاوة كفول إسماعيل كسر دوا ودك بلشم يا حفلة ديري والله ستة بقول كذا بقول مدن أيام يمروي با مركوري واحد كل سلام يا سلام تخاتم state of Somalia خاتم هنولاتو خاتم هنولاتو عاوة وحيتها فرحة وين وايو هبين كان والله حس يوصل لتقول دي أفراد خاتم state of Somalia وحن شغلي برده خاتمه تلاح رجيان وذا شغلي رجع قارئ عاو قلها يجمع وقرية رهات وشيدوي كخاتم الله أساسي وشيدوي أي نسلا قرنين وشيدوين أي كدركسين شعب كصوماليا سؤال بنشعلين ندويديو هدي نجح للصوتور هدي نجح للصوتور نجح على وجود صوتوري ما نجح حد قبسنا لسه بس قفكي صوتوري سؤال شا تدوينها الصومالية أنت نهارك شوكتا يا أنت داود دوتا يا وديني runaaantii khaatumo waxay maraysaa meel aanay ka soo noqon karin dhagaxa aan idiin sheegayo waxaan jeclahay inaan sharxo dhagaxu waxa weeye waa niman ka soo jeeda deegaanada Khaatumo state of Somalia horta dhagaxaan idiin sheegayo annagu haddii aan reer Khaatumo nahay dhagaxa ma qabsanayno laakiin cidii soo tuurtay ayaa dagaal naga dhaxeeyay inay faanteen baan malaynay waayahay farxad way bay tahay barnaamijkeenu waa sidoo idiin sheegay afhayeenka Khaatumo state of Somalia ee qaaradda Yurub mudane diiriye abshir xaaji diiriye عاو مركا وحنو قايبيننا لبا قايبود اما صدح قايبود قايبتا فنانين تعاوى وسدا ودين شيغاي الهيسا عصب oo runtii anu waan soo dhageystay runtii caawa aad qiiradooda iyo shucuurta idin kicin doona waa idinku soo maqayn heesaasi waana isu soo noqonaynaa hadii la yiraahdo marka waxaan jeclahay ummadda Soomaaliyeed waa marxaati bay ka tahay deegaanada Khaatumo state of Somalia waqtigan aan idin la hadlayo waxyaabaha ka socda runtii wax loo adkeysan karo maaha wax loo dulqaadan karana maaha arinku wuxuu marayaa anaa wax noqdo adiguna waxba ha noqon annagu waxaan u dhimanaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo midnimada Soomaaliya dadka naga soo horjeeda waxay qabaan in dalku kala go'o waxay qabaan wax la yiraahdo sadbursi anaa ka xoog badan anaa ka dad badan waa sheekaan soconayn marka inta ka gudbo waxaan halkan hambalyo iyo salaantii ranaan uga dirayaa dhammaan madaxweynaha Khaatumo state of Somalia golaha wasiirada golaha baarlamaanka iyo golaha ugu tunka weyn Khaatumo state of Somalia oo ah golaha dhaqanka Khaatumo state of Somalia salaanta markaa ka gudbo waxaan jeclahay barnaamijkeenu inoo soconaya waxaan u yeeri doonaa
si aynu barnaamijka toos u guda galno gudoomiyaha jaaliyadda Belgiumka mudane Maxamed Cige waxaan leeyahay ku soo dhawo mudane caawa runtii waxaad moodaa inay tahay habeen runtii qiime gaara u leh dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda Khaatumo State of Somalia taadan ka gudbo marka hore waxaan u mahadnaqayaa anigoo ku hadlaya magaca jaaliyadda Khaatumo State of Somalia ee waddanka Belgium marka hore waxaan u mahadnaqayaa dhalinta ka soo shaqeysay barnaamijkan oo ahaa runtii barnaamij aad looga shaqeeyay oo ay iska kaashanayeen labada jaaliyadood waddanka Holland iyo waddanka Belgium dhalinta ka qayb qaadatay barnaamijka quruxda badan caawa ka soo shaqeysay ayaan si gaar ugu mahadnaqayaa waxaan kaloo doonayaa inaan u mahadnaqo dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadweynaha reer Khaatumo ugu horeeyo madaxweynaha maamul goboleedka Khaatumo State of Somalia Professor Ali Khalif Galeer golaha wasiirada madaxweyne ku-xigeenka golaha wasiirada golaha baarlamaanka iyo dhammaan shacabweynaha reer Khaatumo meel walba ay joogaan waxaan leeyahay hambaliyo sanad guurada afraad ee ka soo wareegatay aasaaskii maamul goboleedka Khaatumo State of Somalia oo caawa afar jirsaday haddaan caawa waxaan doonayaa waqtiga aad u yar awgiis inaan u mahadnaqo dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed ee waqtigooda qaaliga ah u soo huray oo nagu sharfay inay nagala qayb galaan barnaamijkan oo isaga yimi dhammaan daafaha waddanka Belgium waxaan kaloo si gaar ah ugu mahadnaqayaa dhammaan jaaliyadaha wadamada dariska Holland Belgium Holland Netherlands France waxaan ii muuqdaa dhalin ka timi wadamada Scandinavianka sidoo kale waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa madaxda maamul goboleedyada Jubaland DDS Galmudug Maakhir State of Somalia iyo dhammaan jaaliyadaha kale ee nagala soo qayb galay barnaamijkan naguna xusay inay nagala qayb galaan oo ay nagu sharfaan caawa inay halkan noogu yimaadaan oo ay waqtigooda u soo huraan waxaan doonayaa inaan barnaamijkayga ku soo koobo oo kaliya Khaatumo ha midowdo ha israacdo ha adkaato ummadda Soomaaliyeedna waxaan sida awgeed mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada sanad guuradii afraad ee Khaatumo State of Somalia oo caawa afar jisatay dhammaan dadweynaha nagala soo qayb galay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay habeen wanaagsan ciid wanaagsan iyo hambalyo gudoomiye aad iyo aad ayaad mahadsan Ismaaciil Ducaale Aftaag aad iyo aad baa mahadsan tahay aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay ka jaaliyad ahaan haddaan nahay Netherlands iyo Belgium ba ka soo qaybgalkaaga waxaynu aan sii wadanaynaa barnaamijkeeni mar labaad waxaan dib idin xasuusinayaa in qof walba leeyahay 2 minute una dhaafin karin waxaan u yeerayaa oo aan madashan aan ka wacaya Sahra Ilkacas waa jaaliyadda Holland Sahra samawada inaba caadi ma magaca samawada waan maqli jirtay ma filay haye bismillah horta iga raali hada waa la igu xaday mikrofoonka gudoomiyaha waxaan ku hadlayaa magaca gudoomiyaha iyaga jaaliyadda Holland bismillahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay runtii ka soo qaybgalkiina sharafta leh dhammaan dadka halkan fadhiya jaaliyadda Khaatumo iyo jaaliyadaha kale dadweynaha reer Belgium dadweynaha Netherlands Belgiumka Jarmalka safar dheer soo galay Scandinavianka ma sha Allah tabaarak UK ya sorry UK jaaliyadda UK waliba London ma sha Allah tabaarak way nooga yimaadeen dad badan runtii
waxaan leeyahay anigu wax badan runta halkan uma soo istaagin waxaan idin leeyahay hambaliyo aan u dirayno sanad guuradii afraad ee ka soo wareegtay maamulka Khaatume State of Somalia oo madaxweynaha ka yahay Professor Cali Khaliif Galeyr waxaan runtii ay maamulkaasi u istaageen inay maaragtay codkooda ku hadlaan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn insha Allah bismillaahi kariim waxaan u rajaynaynaa inay guushooda gaaraan waxaan runtii aad aan u sheegaynaa halkan ugu sheegaynaa in la soo maray marxalado kala duwan oo maaragtay uu dalku u baahnaa maantana ay taagan tahay runtii waad ogtihiin wax ka socda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn aadna waxaan barsoon lagu cambaaraynayaa dagaalka qaawan ee lagu hayo deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn ee aan maaragtay gabashada lahayn waxaan u bogaadinayaa in si nabada oo wanaaga maaragtay gobolada lagu dhameeyo hadalkeeda insha Allah bismillaahi kariim khayr bay noqon aad baa u mahadsantihiin jaaliyadaha maanta meesha isugu yimid mar labaad magacaygu waa Saare Xuseen Muuse Samaw waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysaan tolow caawa jawigu sidee buu noqon doonaa run ahaantii xilli aan sidaa u fogeyn waxaan hortiina soo tubi doonaa fanaaniin daayar oo ina durduursiin doona inaga dhargin doona heeso wadaniya haddii allaha awoodda leh ogolaado goobtan aanu joognaa waa Belgium waa sanad guuradii afraad ee Khaatume State of Somalia Khaatume waxay u taagan tahay midnimada Soomaaliya aan intaa isla fahan Khaatume waxay u taagan tahay dhiigga waxay u qubaysaa dhibaatada waxa loogu sameeynaya waa midnimada ummadda Soomaaliyeed gar loo islaam baa la yahay Khaatume ujeedadeedu waa intaas weeye waxaan u yeedhayaa wakiilka ka socda maamul goboleedka Galmudug State mudane Farxaan Cali reer Galmudug tol siyaasadeed baynu nahay cid walba waa isaga dhownahay habeen wanaagsan dhammaan mudanayaal marwooyin martida sharafta leh ee caaway halkaan iskugu timid waxaan si sharaf badan ugu mahad celinaynaa martiqaadka dhammaan dadka ku nool Belgium iyo wadamo kale oo dariska ay maantay caawi halkaan ay iskugu yimaadeen annagu haddii aynu nahay jaaliyadaha ku nool waddanka Belgium waxaan aad u aaminsanahay in ummadaha Soomaaliyeed maamul goboleedyada ay xaq u leeyihiin in ay cid walba aayaheeda ay ka tashato waxaanu aaminsanahay oo Khaatume State in ay aayaheeda ka tashato oo ay go'aansato qaabka ay doonayso ka qayb qaadashada midnimada Soomaaliyeed una madax bannaan yihiin nidaamka siyaasadeed oo ay Khaatume State dooratay shacabkeeduna ay ku taageersan yihiin sidii ay isku abaabuli lahaayeen isku maamuli lahaayeen waxaan wali aynu bartamaha kaga jirnaa jaaliyadihii inoo yimi mar dhaweyd jaaliyada Germany baa loo yeeray hadda ayaa la soo galay waan filayaa inay ku xigi doonto waxaan u yeerayaa jaaliyada UK
وعرّ إنجليزات الله الله وماشى بدنا بخاتمة أي كسر بلابتي وحنوي وفتي آد وبلارن ومدحض يقص الرئيسي وحاكم إذا مدحض أو جامينيسي سعيد أفتاك يأبح عناية لكن عاوة وحنا نصيبه يا شيء مدشان أبح عناية أدبر ما سنتي ديريا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان شاليده رير خاتمه أدسجي مدافعها يوروب أدبر نديكم هالنقيا إن كاستعاوة هبينك يقول رئيسي وأنا ماشي كهذا هذا خلد ما هلا يقرأ لي هذا أنا قاكو هالليا مقع شاليده خاتم ستيت أوف لندن أنا قاكو هالليا مقعودة إنت أنا حبارسن waxaan idinka wadaa salaan iyo bogaadin iyo farxad iyo rayn intaba wadata ayaan idinka wadaa oo idinku hambalyeynayaan hawshan quruxda badan madasha quruxda badan aad isugu timaadeen boqolkiiba boqol anoo ku hadlaya afka gudoomiyaheena iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda dibadda kana mas'uul ah inta kale ee ila socota waagi hore mar walba Ismaaciil Aftaag baa mas'uul naga ahaa caaw waxa la igu yiri adigu bedel marka aad baad u mahadsantiin boqolkiiba boqol waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa jaaliyada Belgium ee sida quruxda badan ee sharafta iyo qadarinta iyo maamuuska mudan nagu soo dhaweysay hadaanu nahay reer London jaaliyadaha kale Germany Holland dhamaan inta yadii timiba aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa dhamaantiina waxaan idin leenahay hambalyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waayahay weli waa faan noole fari kama qodna caawa loo kala dareeri maayo waxaan jeclahay sidaan aan ku xansaday hoolkan ilaa saa dambe uu furan yahay cidii joogaysa marka waxba waqtiga ka warwari mayno runaantii waxaanu caawa halkan loogu dabaaldegayaa waa sanad guuradii afraad ee Khaatume State of Somalia waxa kale oo isla xafladan lagu taageerayaa waliba sihiil iyo hooya maamulka cusub ee la doonayo in loo unko Khaatume State iyo Maakhir State xafladan lafteeda waa lagu taageerayaa dhammaan xafladahani waxay ka dhacayaan daafaha caalamka oo dhan waayahay waxaan u yeedhayaa jaaliyadihii baan ku jirnaa jaaliyadda Jarmalka waxaa la sheegay hadda inay shukri ilkaas ay timid markaa waa ku soo dhaweynaa shukri ku soo dhawow shukri ilkaas oo ka mid ah madaalayaasha jaaliyadda Jarmalka runaantii waxaan jeclahay inayna tiraahdo dhowr kalmadood fariimo ku socda qolada gudaha ee deegaanka dawlad goboleedka Khaatume State iyo waliba shacab weynaha qurba joogta shukri ku soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وحن كبلا ويا مهد إلهي ومهد إسكال مركورة سبحانه وتعالى الله أعاون إنه كل مية مدرشان قروح ضبطن سيدا قروح ضبطن لوسو أقاسمي الله سامركورة مهد إسكال مهد إسكال بعدي inta ka soo hadhay waxa iskale jaaliyada Belgium ee soo qabanqaabisay xafladan quruxda badan ee aad iyo aad u agaasiman ee aynaan soo koobi karin caawa maxaan ku raaday qadarinta iyo sharafta ay leedahay aad iyo aadna maxaan ku raaday waan ugu hambalyeeynaa waan ugu mahad celinaynaa aniga oo ah Shukri Ismaaciil Faarax kana soo jeeda jaaliyada Germany ee Khaatume State of Somalia afkoodana ku hadlaya waxaan salaan idinka wadnaa aniga iyo xubnaha ila socdaaba jaaliyada inteedii kale dhammaan waxay idin soo gudbinayeen salaan
kal iyo laaba oo aan la soo koobi karin salaantaas haddii aan ka gudbo caawa waxaan u malaynayaa waxaynu isugu nimi cidna loo sheegi maayo waynu iswada garanaynaa waxaana salaan marka hore aan salaamayaa dhammaan bulshada ka soo qayb gashay xafladda quruxda badan ee qiimaha leh ee bulshada kala duwan ee daafaha adduunka ka kala timi waxaan u malaynayaa Yurub in wax ka maqaniba inaysan jirin aad iyo aad baan u salaamayaa hadday tahay odayaasha hadday tahay dhalinyarada hadday tahay gabdhaha hadday tahay hooyooyinka hadday yihiin ururada maxaan ku raadayay Soomaaliyeed iyo bulshaweynta Soomaaliyeed ba aad iyo aad baan iyagana u salaamayaa haddii aan salaanta ka gudbo waxaan jecelahay anigu in aan hadalkayga ku bilaabo haddaanu nahay jaaliyadaha reer Khaatumo ee qurba joogta waxa weeyaan waqtigan aynu joognaa waa waqtigii la qaban jiray xafladihii taageerada Khaatumo taasoo ay hadda ku soo siyaaday maamulkeena cusub ee aynu rabno inaynu hadeer ballaarino midibadana aynu aasno taas oo ah maakhir iyo Khaatumo State of Somalia oo ku midoobaya maamul goboleed dhamaystiran aad iyo aad baan arrintaa u soo dhawaynaynaa uguna faraxsannahay ilaahayna waxaanu ka baryaynaa in uu nagu guuleeyo ilaahay idankiisa intaas ka bacdi waxaan rabaa inaan halkan aan uga diro salaan iyo bogaadin iyo hambaliyo iyo taageero reer Buuhoodle oo ay ku socoto arrin ama gobolka Cayn baan idhaahdee ay ku socotay ayaamaha dagaal joogta ah oo aan loo kala hadhin oo dadka ay barakaceen maatadii ay barakacday dhibaato fara badan ay ka taagan tahay dadka maxaan ku raadayay ka shaqeynaya hadeer dhibaatada waqtigan aynu joogno 2016 inagoo joogna waan cambaaraynaa boqolkiiba boqol baan cambaaraynaa dadka waqtiga barakiciyay dadka masaakiinta ee maatada ee waqtiga ka saaray guryahoodii aad iyo aad baan u cambaaraynaa waxaanuna u hambalyeeynaa dadka ka dhidhiyay ee ay u horeeyaan reer Buuhoodle iyo reer Ballicad oo ka gilgishay qaadana waayay dhibaatada lagu hayo ee maatadoodii haysata aad iyo aad baan maxaan radayay aan ugu hambalyeeynaa banaanbaxyadooda hawsha ay hayaan waxaanu kaloo ku taageeraynaa jihaadka ay ku baaqeen reer Buuhoodle iyo culimada reer Buuhoodle aad iyo aad baan u taageeraynaa waa jihaad waxaanu hambalyeeynaa ciidamada naftood hurayaasha ee waadkaysan waayay una dulqaadanaya 25 sano in ay yani dhibaato iyo xumaan ay bulshada dhexdeeda ka abuuraan maantana loogu tagay guryahoodii kana dhidhiyay dhibaatada lagu hayo ciidanka dadkooda iyo ehelkooda iyo bulshadooda aad iyo aad baan iyagana u taageeraynaa waxaan idin leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin ilaahay waxaynu ka baryaynaa wixii khayr inoogu jiro inagu shar ma rabno cidna ku duuli mayno cidna dulmi mayno laakiin wixiina dulma diyaar uma nihin una dulqaadan mayno intaa wixii ka dambeeya waxaan idin leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad bay u mahadsan tahay Shukri Ilkacse Shukri Ilkacse waa jaaliyadda Germany hogaamiyaha caawada waad aragtaan khudbadeedii aad baan ugu mahadinaynaa ma sha Allah waxaan baa arkayaaba hablihii reer Belgium kuwoodii ugu qaalisanaa oo ay ma sha Allah soo dhaweynaya waxaan leeyahay cid walba sidaas bay jaaliyaduhu ay su jecel yihiin halkaasna waynu ka sii wadi doonaa insha Allah ta'ala ana baqiirooday aan hore u sii wato barnaamijkayga waxaan u yeerayaa Caynaashi Cabdiraxmaan waa jaaliyadda Canada waa 15 geedi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله يروح عندكم سلام يا سلام إسلام كسيد ولدي ما هذا حال إلهي كذب حال ما هذا علينا يا جالية رير بالجم
iyo ciddii ka caawisay maanta dabaaldegan sanad guuradii afraad ee qaatumo Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato qaatumo ha noolaato qaatumo ha noolaato qaatumo ha noolaato wadajirka maamulka cusub wadajirka qaatumo iyo maaqir ha noolaado ha hirgalo cadawga qaatumo iyo maaqir ha dhaco maamulka qaatumo state of Somalia anigu all the way waxaan ka soo safray Canada magaalo la yiraahdo Calgary waxaan u maleynayaa fogaanteeda inaad dareemaysaan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan shirkan idin kala soo qayb galo dabaaldegan إن شاء الله تعالى تذكر هير قاتو مقالة طلع قلعتي سومالي مدو كبير عبطي وحن قرشين إنا مارتنا إنا كبير عبطو سومالي ديدكو هدعو دولك هنقلو من ماذا سومالي هقو ليستو هذه باني ديكو مهد علينا يا تذكر شرفت له جالي ضاها وضي جعلها هاي هالكن جوغا I love you. Love come from North America. waxaan ambaliyo u diray ciidamada geesiinta ee maamulka qaatumo ee saacada aynu joogno uu dagaalku ku socdo waxaan hubnaa maadaama Ingiriiskii ka guuleysanay cadawgii reer Yurub Marya Aloolka inay ka guuleysanayaan madaxweynaha maamulka qaatumo ha noolaado madaxweyne ku-xigeenku ha noolaado gudoomiyaha baarlamaanku ha noolaado maamulka sharafta badan ee qaatumo ha noolaado shacabka reer qaatumo ha noolaado inta nacibi ha dhacdo aad baan idinku hambaliyaynayaa 3 daqiiqadoodna waa ka soo yareeyay waxa kaliya oo ku darayaa inaan ku faraxsanahay asxaabtaydii aan wada shaqayn jiray yeeris عاو الله فينا نلاقي المي نولاذ يدينكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baad waxa u mahadsan caynaasho inagu yimid dalka Canada waa sidaan horeba u sheegay waa 15 geedi fadlan shaqaalaha waxaan ka codsanayaa qaybta dambe dadku way isku murugsan yahay in aad kala hagaajisaan aad baad u mahadsantihiin waxaan u yeerayaa jaaliyada Jubaland oo dhiig iyo dhaqan la wadaago Soomaalinimana aan wadaagno waxa caawa u hadlaya Cabdullaahi Bashiir Fooxle oo waa gudoomiyaha jaaliyada wadanka Holland soo dhawo Assalaamu alaykum dhammaan waa idin salaamayaa jaaliyada Qaatumo State salaantan waxaan idinka wadaa reer Jubaland oo dhan meel kasta ay joogaan waxaan u hambalyeynaa Qaatumo State iyo Maakhir isku darminadooda ay isku darsadeen iyo waxaan kale toon u hambalyeynayaa sanad guuradii afraad ee Qaatumo dhammaan reer Qaatumo waxaan leeyahay sida aad isugu imaateen ee dadkiina iyo dalkiinaba aad u difaacaysaan inaan anaguna idinku garab taaganahay anagoo ah Jubaland iyo shacabka reer Jubaland oo dhanba ay idin garab taagan yihiin meel kasta aanu joogno iyo meel kasta oo taaganahay saacad walba iyo waqti walbaba Jubaland way idin taageersan tahay waxaan kala toon fariin u dirayaa madaxweynaha naga Jubaland iyo madaxweynaha Puntland labadaba fariin baan u dirayaa oo shirkan ku jirin fariinta aan u dirayana waxay tahay madaxweynaha naga Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waa in uu taageeraa Qaatumo State inuu taageero uu siyaa weeyaan waxaan kala toon leeyahay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas waa isagana sidoo kale inuu taageeraa reer Qaatumo State waxaan leeyahay Qaatumo State ha guuleysato ha waarto guul iyo gobonimo ay dirajeenaya Qaatumo State assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aad iyo aad buu u mahadsan yahay gudoomiyaha jaaliyada Jubaland ee carrada Holland thank you waan ku leenahay waxaynu maraynaa barnaamijka guntii iyo gabagabadii qaybtiisii koowaad waxa inoo haysan laba qaybood waxaan si kal iyo laaba aan ugu yeerayaa jaaliyada Maakhir State of Somalia oo aanu hadda 100% Taylani Xaaji Aadan
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. waxaan salaamayaa dhammaan martida sharafta leh ee ka soo qayb gashay xafladda aadka u sharafta badan. waxaan kaloo salaamayaa gudoomiyaha jaaliyadda Biljam Khaatumo. waxaan kaloo salaamayaa dhammaan marwooyinkii mudanayaasha ka soo qayb galay xafladda. waxaa farax weyn ii ah inaan ka soo qayb galo sanad guuradii afraad ee Khaatumo lagu xuseeyay. waxaa kaloo farax weyn inoo noqon doonta inaynu shaqana ka soo qayb galo sanadkan sanadkiisa Khaatumo iyo Maakhir isku darkooda xafladda loo dhigi doono. intaa kadib waxaan aad iyo aad u salaamayaa dhammaan ummadda islaamka iyo ummadda muslimiinta ah. waxaan kaloo salaamayaa madaxweynaha Khaatumo Professor Ali Khalif Kalaye. waxaan halkan ka sheegayaa in Khaatumo lagu caasiyay ummadda Soomaaliyeed inay ku caasiyeen Khaatumo inay ahayd meeshii ay Soomaalida ka soo gurtay inay ahayd daraawiishtii haddana ay Khaatumo isu bedeshay. Khaatumo waqti fara badan ayay soo martay. insha Allah waa ka bixi doontaa aad iyo aadna dadka cadowgeeda way jabi doonaan insha Allah billahi kariim. marka Khaatumo iyo Maakhir iyo midoobaani wixii ka xunna markaas soo bixi doonaa laakiin insha Allah way guulaysan doontaa. waan ka baxayaa. aad iyo aad buu u mahadsan yihiin jaaliyadda reer Maakhir State of Somalia. waa dhulkoodii, waa deegaankoodii, waa dadkoodii, waxay caawa la joogaan, waa dawladoodii. waxaa halkaas inoogu soo gabagaboobay barnaamijka qaybtiisa koowaad. waxaa inoo harsan laba qaybood. waa qaybtii cashada. waxaan idinka codsanayaa si sharfoon in aad kuraastiina u fadhidaan. waxaa inoo bilaabanaysaa cashadii oo aynu qof walba miiskiisa iyo kursigiisa loogu keenayo. shaqaalaha ayaa shaqayn doona. qofkii wax u baahda waa loo shaqaynayaa. laakiin anigu iyo barnaamijyadayaashu waxaan idinka codsanaynaa inaad kuraastiina fadhidaan. fadlan xafla may cashada ka horeysa. intaas markaa intaan kaga gudubno waxaan rabaa barnaamijkan quruxda badan ee arkaysaan waxaa ka soo shaqeeyay jaaliyadaha wadamada Belgium iyo Netherland. waxaan si gaar ah aan ugu mahadnaqayaa la soo shaqeeyayaashii aan la soo shaqeeyay barnaamijkan aan gacmaha aan ku wada haynay habeen iyo maalin. waxaa jirta 24 saacadood inaanu saacad ka seexanay. waxaan si kaal iyo laab aan halkan ugu hambalyeeynaya Sahra Samawada, Nasra Fuche, Farxaan Doorre oo ah ninka dhan ee abaabulaya barnaamijkan, Farxaan Bilton aad iyo anigoo ah Diiriye Abshir Xaaji Diiriye Bilton. aad baad u mahadsantihiin. aad baan ugu faraxsanahay xafladan quruxda badan. anigu ma ihi qof aad iyo aad halabuur ah laakiin waxaan isku dayayaa farxadda darteed iyo xafladan quruxda badan darteed in aan tiriyo dhowr erayo magaranaysaa aan isku adaadistay oo jacayl iga keenay aan u qabo reer Khaatumo. wuxuu ka bilaabanayaa gabaygaygu da'da maasodeelayda gabay waanigaan dayine waaqayga waataan ka jaray inaan daliishaaye ha yeeshee danba igu dirqiday doorkan caawa ahe aan dareeyo wataan murtida deeqsi ku ahaay afartaa intaan deed ka daydo ma qabadsiisay toltololo waa go'aantii dibidhac ma u diiday ma dareeyay wataan murtida deeqsi ku ahaaye dood kalena weydiintii ee balana deeqsiiyo dawlad bay dhalatay oo ilaah deeqda ii badi duleedada tayax baa midnimo loo dabaaldegay docmo iyo nugaal baryahan laga damaashaad daclada sarmaayo iyo nugaal daclada sarmaayo iyo nugaal baa durbaan tumay dogobliya yogoorida dambuu deeqay calankii danan iyo wuriidh baa iyana nuurka daalacay dayax iyo iftiin bay heleen degaladaydii darxumadii ka raysto ilaah darajo weynsii diric baa u kacay oo ka dayay diiraliyo ciil dugsi uu khaliif noo naqdiyo
biro adag dugsi buu khaliifnoo noqday deer biro adag anna waa ku diirsaday inuu libinta doonaa afartaa intaan deel ka dayay dow ma qabadsiiyey daldaloolo waa baantee dibidhac ma u diiday ma dareeyey watan sida deeqsi ku ahaaye dood kalena way diintahay balandeersiiyo danaystaha xujoogay baan sana mirar danaysiine duqay iyo barbaar iyo runtii dumarba dhilowye duubkaa loo wada xidhawin badan daalna loo maraye khaatumo daraaddeed rag baa duugta loo dhigaye waa loo dagaalamay ciyaar daaska kuma iman waa la doonay runtii iyadu kamay soo degin waa la doonay iyadu soomay degin difaac wala nin rag kaga jira duunti reer kale anna dalawadaydiyo ma horo ciidaydihin dulaal iyo malaal baa waqo doorka xaasidahe ninka diidan calankayga oo loo dawaafadiyey waa kaa durbaba ii babaday damal sidiisii dunidoo dhan buu suran yaho waa kan daahiray daclada adduunyada wakaa loo dabaaldegay dib u soo jeelaaca oo waa dihashadiisii afartaa intaan deel ka dayey dow ma qabadsiiyey daldaloolo waa baantee dibidhac ma u diiday ma dilayey wataan hortida deeqsi ku ahaaye afar kalena waa ducayare bal aanan dareensiiyo dahablow dalkaygow ilaah kuma dulaysiiyo door iyo waqay kaa dhashaan diracyo fiican dadkaagoo israaciyo ku faan darajo aad gaadho wax ku daga ilaah kaa difaac daalin iyo tuugba wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan u yeerayaa buraanbur waa buraanbur aad u qaali ah waa jawaahir shire waa waddanka Netherland waa gabadh aad iyo aad mar kastaba ugu buraanburta jaaliyadda Khaatumo State of Somalia ee Belgium iyo Holland iyo maamulkaba jawaahirku aaway dadka wada ka aqaanay jawaahir sooka gaariga Opel waxaan ka السلام عليكم ومهدسنتين شرفتا dadka martida sharafta leh ka soo qayb galay barnaamijku waa hal xabo ka sheekeynayo gobolada in aan diidanahay oo aan ogolnahay Soomaali weyn iyo hal magac waana tan ugu kaliftay inaan u imaado Khaatumo oo raadisa Soomaalinimo waas jecelnahay barnaamijka siyaasadda isku haystana moogiyo Soomaalinimo waas jecelnahay سياسة دونيدا يا هذا وحله صحا سياسة دونيدا يا هذا وحله صحا هديس عيسو شينا بهذا نواذا سناي هديس عيسو شينا بهذا نواذا سناي إسان كانوا مقانو أنسوغينا سويال سان كانوا مقانو أنسوغينا سيدويال إسكالا سوعنا سودينا هلا نيمت إسكالا سوعنا سودينا هلا نيمت إسوكيا إسكورات سنونا دوكالا سيكانو Somali ni madina yo ansina baurabit esu ashwa hawe yasas ma kusoo karna aman sindi nasaba ani wa hali no hoy layska ma hantob sada
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعاوى شرف وينيا أنا كسودا أهنا مقاعد مدر آدم مدحونا كتيجانك أول الستيت إن الهركن إني لو ذاقو
inila wadaago inagala qayb galo xafladan sanad guurihii afraad ee khaatuma state aad iyo aad bay sharaf igu tahay aad baad mahadsantahay asalaamu calaykum aad iyo aad ayaad mahadsan tahay heesta calanka waxaan jeclahay inaan fadhiisto heesta calanka dhegaysano
aad baan idin salaamayaa dhammaan shacabka qiimaha iyo qaayaha badan ee caawa goobta isugu yimi aad baan u faraxsanahay intan oo shacab ah inaan arko oo Soomaaliyeed heeskan aan hadda idin soo wado waxa la yiraahdaa holholiyana iska leh heegaalayo cada hawdiyo ilaa labi hanqaltaaga meel kale hurda kuma leedayo hantidaydu igu filan horar inaan ka dayrana hegan baan u gelayaa hegan baan u gelayaa
filan hantidaydu igu filan Allah din alay su wadar
دلياري ويلي اللادين علي سود الرعي حبينك هو يلو تلي هليلي يو هليلي هليلي يو هليلي الله ندي يو نقل قدني
hadday hawshu inoo dhammaystiran tahay way inoo joogaan caawa waa sanad guuradii afraad ee khaatume state of Soomaaliya waxaa kaloo caawa halka laga taageerayaa maakhir state iyo khaatume state oo midoobay dhowaanna lagu dhawaaqi doono maamul goboleedkooda إسماعيل دعاء أفتاك عادي هاد بدوما سنتاي وحال حتى بلابرينا هاني يوكي سيما شيلو عاود الليلة ليدي هونتي نيتاغن تاي سعيدة شيلو عن هاني يوكي ودنا كوهاي ها كوهاي كما الله تايدا سارو سنة جورو وعند مان خاتمة state of Somalia. waayahay heesta haatan idinku soo maqan waxaa la yidhaahdaa
halhays ka dhigo khaatumo waxaan jeclahay inaad aad u dhegaysataan aad u dhuuxdaan aad ula qaybsataan dareenka iyo shucuurta soomaali jacaylka Okay.
ay daraawiish ka bilowday gobanimo Kapilo de Gabanimo وعمت عليه وهذا يعين حتى حديثي ورها نقال قدن وعمت عليه وهذا يعين حتى حديثي ورها نقال قدن
هيدوسن هيدلني هيدوحن هيدلن أنيقون نور هيدوين إرادنو هيدلن هيدوسن كفر هذا وبركاي أنا قبل بيدين أنا هيسو وما هو وحين يكسر وين يا هاني يوكي
نوتالا واتي الدراويش تلك أدو تبتي تبينا واندو تبينا واندو تاريخ نقرني أبدا ترميني فوق نوتالا واتي الدراويش تلك أدو تبتي تبينا واندو تبينا واندو inkastoo togtii hore la dabtaafay waayadan tashayoo dadkaygii tayaday lahaayeen ku talaale khaatumo inkastoo togtii hore la dabtaafay waayadan tashayoo dadkaygii tayaday lahaayeen ku talaale khaatumo kasiiru كتيكسانينيو طبقاتو أكوية على توسي خاتمو كسيرو تلابدا كتيكسانينيو طبقاتو أكوية على توسي خاتمو
way to my place. Nafsiga dabra geesiga surbiya dabin ugu jira jacaylkan dumiyiban markala doonaya jacaylkan dumiyiban markala doonaya surbiya dabin ugu jira jacaylkan dumiyiban markala doonaya jacaylkan dumiyiban markala doonaya School master, be so party me. That's what you're with me, a yak I say. Bring me the young woman, what you say. Say, come and see them in the market. Finish you couldn't put him
me wabake. What the talk negative one, ever better my day. Hey, for the anke to more dear. So me to me buka, me get me hair. Wouldn't you with the council challenge you the flag? Oh no, I'm a crack dance, boy, you forget. But you're not from the moon apart, as a own care. waa hees loogu talagalay maamulka Khaatumo iyo Maakhir State waana hees cusub marka waxaan jecelahay dhowrka daqiiqo la duubayo inaad idinku chance na siisaan wixii ka dambeeyana samada la isla aadaya ku soo dhawaad Saciid Shiino
Hello,
Thank you.